wafti xildhibaana oo ka kala socda mudanayaasha golaha guurtida iyo waliba wakiilada ayaa ka ambabaxay madaarka cigaal ee magaalada Hargeysa. wafdiga ka ambabaxaya madaarka cigaal iyo halka ay ku wajahan yihiin waxa warfidiyeenka u sheegtay Fadumo Sicid Ibrahim. wafdiganu wuxuu ka kooban yahay golaha wakiilada iyo guurtida waa labada committee ee arrimaha dibada u saabsan. waxaanu helnay invitation rasmi ah oo aanu ka helnay Barlamanka Europe iyo Barlamanka Germany. waxa aanu u tegaynaa inaanu ka soo wada hadalno waxa weeyaan bal maxay ixtiraafkeeni waxa haysta waxa loo baahan yahay inaynu sameeyno. labaad waxa weeyaan inaynu soo sameeyno Somaliland Friends of Somaliland asxaab fara badan oo MPyaal ah inaan soo sameeyno. saddexaad waxa weeyaan horumaray fara badan baa maxay haydeen sanadka dambe la bixinayaa inaynu dabatana maxay haytaana aynu qaybteedii aynu ka qaadano insha Allah bidmillaahi kariim. maxay haydeen badda casna maxay hayd wadani maka maxay hayde dad badan mashruuciyo ka dhigteen marka taa laftarkeedana inaan laga soo wada hadlo. ugu dambeyntii su'aal dadweynuhu isweydiinayaan oo fara badan baa jirta. Fadumo Sicid warbaahinta waxa kuugu dambeysay adigoo xisbiga mucaaradka wadani ka baxay oo aan dhinac kale sheegin inaad ku biirtay. hadda maadaama wafdi aad hor kacayso maan la waran karin dhinaca xukuumadda ayay u jeertay. maxay haydeen sidaan markii horeba sheegay anigu Somaliland baan u shaqaynayaa. saddexda xisbi midna uu kama tirsanay sida aad arkaysid laakiin Barlamanka waa neutral. Barlamanka waan la shaqaynayaa guurtida waan la shaqaynayaa cid alla cid aqoonsigeena nabadgelyadeena Somaliland oo la wada leeyahay doonaya inay ka wada shaqeeyo anna waan la shaqaynayaa. Badri Koosar Maxamuud telefishinka Sahan Hargeysa.